munaasibadan la qiyaasi karin abaabulkeeda oo kulmisay cuqaasha waxgaradka odayaasha dhalinyarada aqoon-yahanka dadweyne guud ahaanba labeenta shacabka reer Gabiley xubna ka tirsan golaha deegaanka maamulka heer gobol iyo heer degmo ayaa maanta ka dhacday hoolka dawladda hoose ee degmadaasi Gabiley xafladan oo ujeedkeedu daarana taageero ay u muujinayeen go'aanka baarlamaanka Soomaaliland ay ku ansixiyeen heshiiska dekada Berbera iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo sheegay inay taageersan yihiin wax kasta oo horumar u ah dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana dhammaanba mas'uuliyiintii halkaasi ka hadashay hadaladoodii kamid ahaa maanta waxay noo kala inaan taageero u muujino madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland tallaabada uu qaaday ee horumarka ee uu ku maalgelinayo dekada Berbera waa ku hambalyeynaa waa ku garab taaganahay waa ku soo dhaweynaa inta bacdi warayaal waxaan ka taageeraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baaqi soo jeediyay in baarlamaanku ansixiyaan ee kamid ah horumarka dalka Soomaaliland sida dekada oo kale inuu arday loo kabo dintii ay Soomaaliland lahayd aad u taageersan madaxweynaha adduunyadu waxay aaminaysaa maanta Soomaaliland inay dejina tahay dhisada aamin tahay maaha aqoonsiga keliya inay raacdo saxaafadda joogay طبعا الله وصلت له تايوان الى مصر والمغرب لكن واحد كسر طرف الله وصل وعن كل ذلك مصر راسيا فوق الريبات الى ادري واحد كان يشتغل في بيوت والله وكيلنا وخلنا أركان يسلمنا تاريخية تركي لو سنسين الغضب قتين الماطو هرمنا بتاعتين هذه تدمجاتي وانا نقول هذا وحاولنا نهاية كسيوة وحاولوا تتعامل معنا كهر رئيسية تتكاكا تعامل كرايا شيء كتبصرة وبين فضلك فكرين هذا ودوي تاي هذا دكتور بلارية تاي هذا شقاوة تاي وحاول وقت قيمة بدلنا نتعامل كريباتك oo jecelahay inuu istaabsiino qaran marka la qiimeeyo ee qaramada jiro ku soo biirayo wuxuu helaa waa aqoonsi weyn qaran aqoonsigiisu wuxuu ku xidhay shuruudo kooban waa in qarankaasi uu heli karo fursad ugu maalgelin karo qolada DBWL marka laga yimaado waxa tooska laga soo gelaya waxay loo aqoonsadeen si toos ah oo qaranka Soomaaliland loo aqoonsaday DBWL runtii madaxweynaha Soomaaliland waxyaalaha xusidda mudan ee taariikhda ku galay ka mid tahay ku dhiibashada iyo ku dhaca taariikhda heshiiskaasi runtii uu galay oo ahaa heshiis go'aan lagu baahan oo culays fara badan lahaa waxaa leenahay madaxweyne waa ugu hambalyeynaa DBWL waxaa leenahay soo dhawaada waxaan u aragnaa inaan aqoonsateen kaliya uma aragno inaad dalka maalgashateen maanta waa maalin farxadeed aniga lafteedana maalinta farxadeed aad ayaan usii faraxsanay waxaan ku faraxsanahay sida buugga iyo miisaanka leh ee dadweynaha aan odayga u ahayn reer Gabiley ay ugu soo bandhigeen inay u taageeraan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland uguna taageeraan heshiiska taariikhiga ee dhaxalgalka ee ay la saxeexatay shirkadda DBWL aad iyo aad baan u rabaa reer Gabiley waxay laalan tahay inaynu u mahadnaqno marka ugu horeysa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ugu mahadnaqayno heshiiska dhaxalgalka ah ee dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliland u soo kordhin doona waxtarka weyn ee uu la saxeexday shirkadda DBWL وعبد الله ضاهر فاشنka caalamiga ee Somali Channel magaalada Gabiley